kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii warbaahinta wadaagsin production oo aad alaaba halkan ka daawan jirteen waxa aad si toos ah nagala socotaan boggeena YouTube ee Samafale Cabdi sidoo kale boggeena YouTube ee wadaagsin media production iyo boggeena kale ee Facebook ee warbaahintu ku leedahay daawadayaal haddii ay tahay markii idinkugu horeysay aad halkaad soo booqataan waxaan idinku dhiirigelinaynaa in aad noo saartaan muuqaalkan subscribe ama page-keena aad subscribe gareysaan muuqaalkan aad like saartaan una share gareysaan asxaabtiina halkan waxa aad ka helaysaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba qodobada warkeena fiidnimo ee caawa aan idinkugu haynana waxa kamid ah 60 sano kadib xiriirkii Masar iyo Soomaaliya oo ku dhow inuu go'o wararkii ugu dambeeyay iyo khilaaf soo kala dhexgalay qabsoomida shirka beesha Mudulood khilaafkan waxa uu dhaxeeyaa Muuse Suudi Yelaxow iyo Ugaas Maxamuud oo ka daray kadib talaabo uu qaaday Xaaji Muuse Suudi sidoo kalena daawadayaal wararkeena fiidnimo ee caaway waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee safarka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku imaanayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug sidoo kalena warar ka soo baxaya Garowe ayaa sheegaya in Cabdi Xaashi oo ah gudoomiyaha aqalka sare uu kaligiis ka degay maantay magaalada Garowe iyo Xooda Hasan oo aan ka helayno safarka gudoomiyaha Cabdi Xaashi sidoo kalena daawadayaal madaxda maamul goboleedyada dalka oo ay ugu horeeyo madaxweynaha maamulka Galmudug kan Jubbaland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa iyaguna ka degay maantay magaalada Garowe waxa ay uga degeen iyo xogaha la xiriira safarkooda ayaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa daawadayaal wararka xiisaha leh aan idin hayno caawina waxa kamid ah dawladda Mareykanka oo war ka soo saartay qaraxa ku yimid diyaaradii shalay ku dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sidoo kalena daawadayaal xog xasaasi ah ayaynu ka helnay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mursal ayaa ku dhawaaqay go'aan xasaasi ah isagoo oo ka soo horjeestay shirka Dhuusamareeb ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada uga furmaya daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena caaway aan idin hayno fadlan daawadaha ilmaamin subscribe muuqaalkan like saar una share garee asxaabtaada ku soo dhawow warkii oo faahfaahsan ee fiidnimo ee warbaahinta wadaagsin media maashanideen 60 sano kadib xiriirka Masar iyo Soomaaliya ayaa qarka u saaran inuu go'o madmadow iyo xiisad kacsanaana ayaa ku xeeran mustaqbalka xiriirka Masar iyo Soomaaliya taas oo sabab u ah mowqifka aan cadayn ee biyo-xireenka Itoobiya iyo khilaafka wadamada Suudaan Masar iyo Itoobiya u dhaxeeya sida uu ku waramay wargeyska Middle East Monitor sida uu wargeysku ku waramay Soomaaliya ayaa muujisay taawareer ku aadan laba qaraar oo ka soo kala baxay jaamacadda Carabta taas oo dhinaca kalena ay u weeciyeen warbaahinta Carabtu gaar ahaan tan Masar wargeyska oo maqaal dheer ka qoray xiriirka diblomaasiyadeed ee soo jireenka ah ayaa wuxuu sheegay in xiriirkaasi oo socday ilaa sanadkii 1960 markii xukuumadaha Muqdisho iyo Qaahira ay gaareen heshiis siyaasadeed oo ay isku tiirsanaana garab istaagyadii ay Soomaaliya ay u samaysay Masar oo wargeysku tabiye waxa kamid ah in Soomaaliya ay taageertay heshiiskii nabadda ee Camp David taas oo Egypt ay la gashay Israa'iil sanadkii 1978 dhaawaca gaaray xiriirka Soomaaliya iyo Masar ayaa u muuqda inuu soo afjari karo cilaaqaadka labada dawladood haddii aysan helin cid wax ka qabata ama hal ka iman dawladahan isku haysta waxyaabo aysan wadaagin Soomaaliya si cad waxay u sheegtay inay taageersan tahay Itoobiya marka laga hadlayo muranka biyaha webiga Niil oo ay isku haystaan Masar waa tan ka nicisay xukuumadda Qaahira maadaama garab istaagii ay ka heshay wadamada Carabta ay ka weysay Soomaaliya Kamaaludiin Saalax oo ah diblomaasi Masar u dhashay kana mid ahaa wafdigii ka socday qaramada midoobay ee Soomaaliya u yimid inay caawiyaan ee la dilay sanadkii 1957 xilligii gumaystaha Talyaanigu uu joogay koonfurta Soomaaliya ayaa naftiisa u waayay arrimaha Soomaaliya sanadba sanadka ka dambeeya waa uu sii xoogaysanayay xiriirka laba geesoodka ah ee haatan sii dhamaanaya Masar kama gamban jirin in ay af iyo adin ku difaacdo Soomaaliya sidaas oo kale dawladii dhexe ee dalka 30 sano ka hor maamuleysay waa ay garab taagnayd xiriir waqti inta la eeg soo jireen ah ma la joogaa waqtigii uu burbuli lahaa waliba xilli labadan dawladood murankoodu uusan salka ku hayn waxyaabo ay isku haystaan amaba ka dhaxeeyo daawadayaal aynu aadno dhankaas iyo magaalada Muqdisho ee
waxaa jiray isbuucyadii lasoo dhaafay warar ku imaanaya in uu dhici doono shirweynaha beelaha mudulood sidoo kalena khilaaf ayaa halkaasi hareeyay senator muuse suude yalaxow oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ayaa shalay diiday ka qaybgalka shirka la doonayay in lagu xalliyo khilaaf soo kala dhex galay hoggaanka dhaqanka mudulood iyo siyaasiyiinta qaar ee uu qayb ka yahay xaaji muuse suude yalaxow gogashan oo ka dhacday guriga ugaaska ayuu senator muuse sheegay inuusan tagi doonin guriga ugaas maxamuud cali ugaas isagoo ku tilmaamay basaas u shaqeeya farmaajo isla markaana doonaya inuu curyaamiyo shirka beelweynta mudulood siyaasiyiin ka tirsan mudulood iyo dhaqanka qaarkood ayaa wada dadaalo lagu xallinayo tabashadii keentay in shirku baaqdo kadib hadallo u badnaa gaf oo dhex maray senator muuse suude yalaxow iyo ugaas maxamuud cali ugaas kadib markii lagu baaqay in arrintan si degdeg ah loo xalliyo casuumado la sheegay in si qaldan loo bixiyay iyo warmurtiyeedka shirka oo la bedelay ayaa sabab u noqday in shirka baaqashadiisa lagu dhawaaqdo sacdii dhexe ee 12 bishan iyadoo ay ahayd inuu furmo 13 bisha inkasta oo muddo maalmaha dib u dhacay shirkan haddana waxaa muuqata inay socdaan dadaallo xoog leh oo ku wajahan qabsoomida shirkan dowladda Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay shirkan ay ku bixinayso kumanaan lacag ah si loo baajiyo khilaafka ugaaska muuse iyo suude yalaxow u dhaxeeya ayaa imaanaya iyada oo dad badan oo beesha mudulood ka mid ah ay toonsan yihiin in imaamka iyo ugaaska mudulood ay labaduba ku xiran yihiin filla Soomaaliya isla markaana aysan qaadan karin go'aano aysan raalli ka ahayn daawadayaal isla wararkii fiidnimo ee warbaahinta wadaagsan ayaynu ku jirnaaye oo xog aan ka helno Garowe ayaa sheegaya in gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi uu shalay maanta kaligiis ka degay halkaasi gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa goordhow gaaray magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo gudoonka golaha wakiilada maamulkaasi ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay halkaasi Cabdi Xaashi oo kali u socod ahaa muddooyinkii la soo dhaafay kadib khilaafkii soo dhex galay labada gole ayaa waxaa socdaalkan uu kali ugu baxay magaalada Muqdisho marka laga tago senataro kooban oo la socday kuwaasi oo kamid ahaa xubnaha la safan gudoomiyaha aqalka sare ayaa Garowe uga qayb galaya aaska madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo dhawaan ku kala geeriyooday Kenya iyo Turkiga sidoo kalena waxaa la filayaa in saacadaha soo socdo ay halkaasi gaaraan waaba ay gaareen madaxda maamulada Jubbaland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo saaki ka soo amabaxay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ammaanka Garowe ayaa la xoojiyay waxaana magaaladaasi laga dareemayaa qabanqaabadii ugu dambeysay ee aaska qaran ee loo sameynayo Allah u naxariistay labadan marxuun sidoo kalena daawadayaal maanta waxaa magaalada Garowe gaaray madaxda maamul goboleedyada oo uu horkacaya madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor waxaa maanta magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland soo gaaray dhammaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada ka jira dalka sida Hirshabeelle Jubbaland Koonfur Galbeed iyo Galmudug madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo shalay dib ugu laabtay Garowe ayaa mas'uuliyiintaasi isku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garowe sidoo kalena waxaa soo dhaweyntan qayb ka ahaa gudoonka baarlamaanka Puntland iyo golayaasha kale ee maamulka Puntland madaxda maamul goboleedyada ayaa ka qayb galaya aaska halkaasi loogu sameynayo madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo ku kala geeriyooday dalalka Kenya iyo Turkiga waxaa sidoo kale goorsii horeysay Garowe gaaray gudoomiyihii aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cali oo isna ka qayb galaya munaasabada aaskaasi ammaanka Garowe ayaa aad loo adkeeyay waxaana magaaladaasi laga dareemayaa qabanqaabadii ugu dambeysay ee aaska loo sameynayo marxuumiintan daawadayaal wararkii fiidnimo ee warbaahinta wadaagsan ayaynu wali ku jirnaaye dowladda dalka Mareykanka ayaa war ka soo saartay diyaaradii ku burburtay balad weyne iyadoo oo shaacisay in arrin khatar ah ay halkaasi ka dhacday dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ka hadashay diyaaradii shalay ku burburtay garoonka diyaaradaha balad weyne ee gobolka Hiiraan Mareykanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay burburka diyaaraddaasi iyo gargaarkii ay siday oo gabi ahaanba shuf beelay maadaama uu dab xoog leh ku kacay sida lagu sheegay war ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya qoraalkan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay inay si weyn ugu faraxsan tahay in burburka diyaaradda uusan ka dhalan wax dhimasho ah safaaradda ayaa si kooban u sheegtay in gargaarka ay siday diyaaraddaasi uu ahaa mid ka yimid dowladda Mareykanka ayna sii wadi doonto taageerada dowladda federaalka iyo midda shacabka Soomaaliyeed ay siiyaan sidoo kalena waxay safaaraddu u mahad celisay mas'uuliyiinta sida degdeg ah uga falceliyay burburka diyaaraddaasi isla markaana samata bixiyay shaqaalihii saarnaa
burburka diyaaradda iyo mucaawinada ka yimid inkastoo nasiib darro yahay haddana waxaan ku faraxsanahay inaysan jirin cid wax ku noqotay shilkaasi oo joogtay dhulka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda diyaaradda burburtay oo ahayd nooca xamuulka isla markaana ay lahayd shirkadda Bluebird Aviation ee dalka Kenya ayaa waxaa si gaar ah ugu kureysnayd qaramada midoobay sida ay horey u baahisay warbaahinta wadaagsin media waxaa dhammaan howlwadeenadii diyaaraddaasi oo lagu sheegay 3 ruux ayaa laga soo samata bixiyay iyadoo magaalada Muqdisho loo soo qaaday diyaaradda nooca qumaatiga u kacda oo ay leedahay qaramada midoobay daawadayaal waxaynu ku jirnaa warkii fiidnimo ee warbaahinta wadaagsin media xog xasaasi ah ayaynu ka helnay guddoonka golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mursal ayaa ku dhawaaqay go'aan culus xilligan xasaasiga ah gudoomiyaha golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa si adag uga hor yimid go'aamadii ka soo baxay shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb gudoomiyaha ayaa joogay kulan ay baarlamaanku uga hadlayeen maanta akhrinta labaad ee dib u eegista sharciga xisbiyada dalka waxa uu ka dhawaajay inaysan ahayn wax la aqbali karo in dalka ay ka dhacdo doorashada dadban gudoomiyaha Mursal wuxuu xildhibaanada u sheegay in maamul goboleedu aysan xaq u lahayn inay go'aan ka gaaraan jihada loo marayo doorashada dalka taas badalkeedana ay iyagu mas'uul ka yihiin wax walba ma aqbali karno ayuu yiri doorashada dadban iyadoo aan ansixinay sharciga doorashada ma jirto meel ay waqtigan ku qoran tahay in la aado doorashada dadban baarlamaanka ayaa iskala sharci walba ee doorasho lagu aadi lahaa ma ahan wax khuseeya maamul goboleedyada gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo ku sugan Dhuusamareeb uu soo matalin baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdulla Cawad matalaad uu matalaya golaha shacabka kuma aadin magaalada Dhuusamareeb arrintaasi fajac ayay nagu noqotay markii aan aragnay sawirada isaga oo la socda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya saaxiibkeen Mahad Cabdulla Cawad danihiisa ayuu aaday Dhuusamareeb ee anaga nama matalo gudoon daba socda xukuumadda waaceeb ayuu yiri xildhibaanku xilli wajigiisa laga dheehay karay carada ka qaaday safarka gudoomiyaha uu ku tagay magaalada Dhuusamareeb daawadayaal shirka Dhuusamareeb dhawaan ka dhacay waxaa la isla gartay in dalku uu galo doorasho dadban tiyo ay jirto in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha lagu cusubay Xasan Cali Khayre ayaa goor hore tagay Galmudug halkaas oo kaga sii gudbay Garowe halka madaxweyne Farmaajo la filayo inuu waqtiyada soo aadan gaaro halkaasi daawadayaal isla wararkii dalka Soomaaliya gudihiisa iyo dibadiisa ayaan ku jirnaaye dawladda dalka Qatar ayaa ka guuleysatay wadamada Carabta ilo xasaasi ah ayaa noo sheegay in dacwadii taalay maxkamadda ICJ ee u dhaxaysay Imaaraadka iyo Qatar ay ugu dambeyn ku guuleysatay dalka Qatar Soomaaliya ayaa garab istaagtay dalkan yar ee Qatar oo ay khilaaf u kala dhaxeeyay dalka Imaaraadka iyo wadamada Carabta ayaa sanadkii 2018 go'doomiyay dalka Qatar ayaa markaas wixii ka dambeeyay waxa uu taakulo dhan walba la ka helay dalka Turkiga sidoo kalena dawladda Soomaaliya ayaa khilaafaadka wadamada Qatar iyo Imaaraadka ka noqotay dhexdhexaad sidoo kalena waxa la soo sheegayaa in xiriirkii ay la sameysay Qatar Soomaaliya maadaama ninka ugu sareeya maxkamadda ICJ uu yahay nin Soomaali ah sidaas darteedna ay dalka Qatar ay ka guuleysatay wadamada Carabta khilaafkii kala dhaxeeyay ee ay iskula tageen maxkamadda ICJ daawadayaal war hadda soo dhacay ayaa sheegaya in saacadaha soo socda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug lagu wadaa inay gaaraan wafdi hordhac ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo dhawaan safar ku tagi lahaa magaaladaasi magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn looga dareemayaa qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha Farmaajo xilli ay maanta tagi doonaan wafdigaasi hordhac ah madaxweynaha kaasi oo ay ka mid yihiin ciidamada ilaalada u ah ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay xilli ay ku sugnaayeen Khayre iyo xubnaha sare oo maamulka dalka ah kuwaas oo horey shirar uga socdeen ra'iisul wasaaraha iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa iyaguna shalay tagay magaalada Dhuusamareeb isagoona kulamo gooni la yeeshay madaxda maamulada dalka ka hor inta aysan maanta u safrin magaalada Garowe kulamada Khayre ayaa ah kuwa lagu gogal xaarayo shirka looga wada hadlayo inuu dhawaan dhex maro dawladda federaalka iyo maamulka dalka kaasi oo qayb ka ah hormarteeyadii ay soo saareen madaxda maamuladu madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulada ayaa ka wada hadli doona arrimaha doorashooyinka ee xilligan taagan iyo sida ay xilligeeda ugu qabsoomi lahayd isla markaana looga baaqsan lahaa muddo kordhin shirkaasi ayaa lagu wadaa inuu dhawaan ka qabsamo magaalada Dhuusamareeb iyadoo oo la go'aamin doono marka madaxda maamul goboleedu ay ka soo laabtaan aaskar ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax iyo madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi oo ay u tageen magaalada Garowe daawadayaal intaan warbixintan mid ka xiiso badan aynu ku kulmi doono waxa aynu idinka tagaynaa anagoo ah bahda warbaahinta wadaagsan iyo Safale Cabdi sidaas iyo nabadgelyo